diyaaradaha istiraatiijiga dagaalka Russia oo dhaqaaq bilaabay. Diyaaradahan ayaa diyaaradaha bambarka loo yaqaan ee bambooyinka culus tuura. Dhaqaaqa diyaaradahan ayaa ka dhigan colaad dhammaystiran. Diyaargarowga ugu dambeeyay Ruushka iyo amar bixinta madaxweyne Putin ayaa waxay soo afjari doontaa is-adkeynta Ukraine. Dhaqaaqa Russia ay u muuqato hadda inay dhaqaajisay dhammaan agabkeeda military waxa uu ka dhigan yahay cimri degdeg ku yimid Ukraine iyo xulufadiisa. NATO ayaa u muuqata mid Ukraine difaacaysa balse markay runta gaadho sida lagu yaqaan gadaal u gurashadeeda waa mid la sugi doono. Mid ka mid ah waxaan saaranahay diyaaradaha dagaalka ee istiraatiijiga duqeeyo waqtiguna uu sii caraabayaa gabalkuna uu sii gaabanayaa balse ma noqonaysa habeenka oo soo galay mid baajin doona dagaalka marnaba. Sidaa waxaa ku warramay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Russia gaar ahaan kuwa cirka, taasoo u muuqata howlgalka habeennimo laftigiisa in loo qaban qaabiyay heerka ugu sarreysay ka bacdi dagaalkii labaad ee dunida. Russia ayaa lagu yaqaanaa dadkeeda iyo dalkeeda iyo hogaaminteedaba kuwa aan jixin markay colaadu timaadana door muhiim ah ka qaato. Ilaa boqortooyooyinkii hore Russia waxay ahayd waddan u diyaarsan sida ay cadowgeeda u dharbaaxayso. Marnaba ma hakiyaan cimilada oo kala duwan, cadceedda oo dhacday iyo roobabka iyo duufaanada toona. waxa la sugaaba